wuxuu ku saabsan yahay soo bandhiga wixii ka soo baxay laba daraasadood oo waaweyn oo la qabtay oo midna ay ku saabsan qoyska amba household survey midna ay ku saabsan ganacsiga amba enterprise survey la yiraahdo la qabtay 2012 marka wuxuu qaabilsan yahay shirku wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood ka kooban yahay waxay ku saabsan tahay kobaca dhaqaalaha iyo shaqada qaybna waxay ku saabsan tahay maxaan yiraahdaa saboolnimada qaybna waxay ku saabsan tahay budgetka iyo kala qaybsan yahay marka imka sessionkii ugu horeeyay noo dhamaaday ay ku saabsan ahaa dhaqaalaha iyo shaqo abuurka maanta waxa halkan ka socda magaalada Hargeysa shir aad u qiimo badan oo ballaaran oo ay ka soo qayb galeen hay'ado fara badan oo Soomaaliland xagga dhaqaalaha iyo maalgashiga iyo mucaawanadaba ka caawiya shirkan waxa weeye shirkii ugu horeeyay noociisa waxaana laga hadlayaa arrimo ku saabsan kobaca dhaqaalaha kordhinta shaqo abuurka iyo sidii ay Soomaaliland ganacsi iyo maalgashi isku dheelitiran ay dunida ula yeelan lahayd khubaro fara badan oo banka adduunka ka tirsan iyo hay'ado kale oo caalami ah ayaa halkan maanta ka soo jeedinaya fikrado iyo aragnimada ay u leeyihiin arrimaha dawladda Soomaaliland iyo shacabkeedii iyo hay'adaha kale ee aan dawliga ahaynba iyaguna si buuxda ayay conference kana ama shirweynahan uga qayb galayaan